kulanti wacan oo wanaagsan saaxiib yaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadda janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saare si ku soo gaara muuqaalin soo socda muuqaalkan sheergareya maasanidin soo dhawaada saaxiib yaal kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ciyaari doonta kulankii ugu horeeyay xilli ciyaareedka cusub horyaalka La Liga dalka Spain kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa caawa kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain 2020 waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Villareal waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou Stadium ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 4 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika Barcelona caawa waxay way doontaa Martin Berwed iyo Samuel Umtiti kuwaas oo dhaawacyo kaga sheegi doonaan kulanka caawa ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda Villareal kooxda Villareal ayaa 2 kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain soo ciyaartay 4 dhibcood ayay haysataa kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa kala sareynta horyaalka La Liga dalka Spain Philippe Coutinho dib ugu soo laabtay kooxda Barcelona ayaa nambarka 14aad xiri doona kulanka caawa ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda Villareal hadii aan fiirino shaxda macquulka laga yaabo inuu ku soo gasho kooxda Barcelona guusha waxaa gali doona Gulaye Neto afar daafac waa Sergio Roberto Piqué Lenganet qadka waxaa caawa ciyaari doonaan Busquets Philippe Coutinho iyo De Jong weerarka waa Messi Anthony Griezmann Ansu Fati waa shaxda macquulka laga yaabo in caawa ku soo gasho kooxda kubadda cagta Barcelona aragtida waad ku soo dhiibi kartaa ama waa soo hadali kartaa kulanka caawa ee Barcelona la ciyaari doonto kooxda Villareal ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 4 saac oo habeenimo waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou Stadium waad ku maasantaa daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo